dowladani waxay ka shaqeyn doontaa inay abuurto jawi oo maalgelin caalami ah iyo maalgelin Soomaaliya hantida Soomaalidu ay leedahay ee dibadda jirta hantiilayaasha Soomaalida ee la cabsaday hantidooda la cararay ee dibadda geeyay inay soo celiyaan oo dalka ay ku soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan si fursad loogu abuuro dadka Soomaaliyeed arrimaha amniga ee aan sheegaynahay waxa ko qayb weyn oo muhiim ka ah amniga quudka ama waxa afqalaad lagu yiraahdo food security waa meelaha aan rabnaahay dhalinyarada inay shaqana ka abuuraan ganacsina ka abuuraan dalkana ay u abuuraan oo u sameeyaan kalsooni buuxda oo ku saabsan in amniga quudka xaqiisa dalkani dhinac walba marka loo fiiriyo badda iyo bar hadii la yiraahdo xoolo iyo beer hadii la yiraahdo wadan qani ahnahay haddana gacanta noo hoorsan dhalinyarada Soomaaliya markay joogaan leeyahay dhalinyarooy dalki iyo dadki iyo deeqa badan ee dhaxyaalaba idinkay marti idin yihiin yaan la isku halaynin yaan la isgaabsanin xoog iyo awood iyo aqoon iyo aqli dadka dunida ku nool haddaadan ugu sareynina uguma hooseysaan nafsadiina ku kalsoonaada dowladdiinana ku kalsoonaada dalkiinana ku kalsoonaada horay u dhaqaaqa haddii la yiraahdo